assalaamu calaykum. Qisadani waa tii ugulayaaka badneyd ee dunida ka dhacday. Malaayiin mucaashaqiina ayay kaga ooyisay qisadani. Qays iyo Leyla, buuraha iyo badaha iyo webiyadu waa ka markhaati jacaylkooda. Waxay dhacday qisadani xilligii boqorkii Cabdimaalik ibnu Marwaan. Garaal noqda. Ibnu lama yidhaahdo haddii laba magac dhex dhacdo. Marka iminkaan saxayna. Qisadani waxay dhacday xilligii boqorkii Cabdimaalik ibnu Marwaan ee dowladdii Umayyadeed. Waa mucaashaqii Qays binu Mulawah binu Musaamix binu Cadas. Wuxuu dhashay 440 Hijriga. Waxuu ku soo barbaaray la soo barbaaray maskax badnaan iyo fariidnimo. Aabihii waxa uu ka dhaxlay gabayada carabta iyo sheekooyinkoodii. Sidoo kale aabihii waxa uu baray garashada xidigaha iyo guuraha habeenkii. Waa saaxiibadiisii Leyla bintu Mahdi binu Sacad binu Mahdi binu Rabiica. Waxay dhalatay 444 Hijriga. waxaanay 4 sano ka yarayd Qays, ama Qays ayaa 4 sano ka weynaa. Leyla waxay la soo barbaartay qurux badnaan iyo laba indhood oo wax sixraya. Dhererkeeda iyo jirkeedu waa mid isku dheelitiran. Waxay u dhalatay cadaan iyo qurux. Qays iyo Leyla waxay ahaayeen laba caruur oo ay isu keentay qaraabadu, oo xagga nasabka waxay ahaayeen laba caruur oo ilmaadeera. Ariga ayay u raaci jireen eheladooda, sidaa kumaysan suulin ilaa ay ka weynaadeen, oo Leyla ka xijaabatay oo ka hagoogatay Qays sida islaamku farayo, taasoo kicisay jacaylkii iyo hilowgii Qays uu qabay Leyla. Isagoo arki waayay yaraantiisii wuxuu arki jiray Leyla oo aan hagoognayn. Markaas ayaa isagoo calaacalaya waxa uu tiriyey gabaygan oo noqday mid fashiliyey jacaylkiisa laabta ugu jiray. Leylaay ma waad weynaatayoo waadigan xijaab isku waabaye, waafiyaha jirka iyo waaxyaha qurxoon waad iga dadoo, waayaha dhulkan wada joognay baan weli sii arkaa. Waqtigii tegiyo waagan yarayn, allow yaa wareeg dib u waaciyo, ina geeya waabiyo waabigii wabiyada badnaa. Mar labaad haddaan isku dayo. Leylaay ma waad weynaatayoo waadigan xijaab isku waabaye, waafiyaha jirka iyo waaxyaha qurxoon waad iga dadoo, waayaha dhulkan wada joognay baan weli sii arkaa. Waqtigii tegiyo waagan yarayn, allow yaa wareeg dib u waaciyo, ina geeya waab iyo waadigii wabiyada badnaa. Markii la ogaaday labadooda jacaylka u dhexeeya, waxaa la kala fogeeyey oo Qays laga fogooyey oo loo diiday inuu u yimaado ama ka soo ag dhowaado Leyla. Haddana iyadoo carabtu aanay ceeb u aqoonin in wiil iyo gabadh ay sheeka dhex marto, Qays waxa soo food saartay murugo oo waxa saameeyey fogaanshaha Leyla iyo jacaylka uu qabo. Waxa uu bilaabay inuu ka fogaado ehelkiisii iyo waddankiisii, oo waxa uu la saaxiibay buurihii iyo goobihii ay marka yaraayeen ariga ku raaci jireen. Isagoo xusaya maalmahay soo korayeen ee carruurta ahaayeen ayuu sida tan yidhi: Leylaay badhaadhaha baradaad ku dhalatiyo, beledkii samaaye, berigaynu joognee, aan wada barbaarnee, kaa bogan lahaaye, kaymaha bannaan iyo aan baylaha joognaan, waxba yaan baroortiyo, bahaliyowga ii yimi, naftaydaan u biimayn. insha allah intaasaan joojinaynaa. Sidoo kale waxaan ku baraarujinayaa gabayadu waa gabayo carab oo lasoo turjumay, nin abwaanaha ee soo turjumay oo abwaan cali muumin cabdilaahi. Marka gabayada waxaa laga yaabaa yacni macnaha xagga ay ku lahaayeen in qaarkood macnaha xaggan aanay ku yeelan. Marka insha allah hadday ku jiraan kelmado khaldan, yacni qalad qofka qalbigiisa u fahmi karo, waa laga raaligelinaya, waayo wax lasoo turjumay. insha allah waxaynu ku balansanay qaybteena labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.